بسم الله الرحمن الرحيم قيادة كرسي marka la soo dhawaada waxaan qaadan doonaa casharkeena 25aad casharkeena maanta waxaan ku baran doonaa sidee rowga iyo column-ka cabirkiisa ama width-kiisa loo saxaa ku soo dhawow casharkeena maanta markii la joogo Excel-ka wuxuu leeyahay marka row height iyo maxaa la yiraahdaa column width labadaba waa la sameyn karaa inaad balaarisid column-ka ama rowga aad balaarisid marka si aan si fiican ugu aragno marka tusaale ahaan marka arkaysid column-kan hadda xogtiisa ku jirto waa full oo ku sheega rowga marka arkaysidna waa aragtaa xogta waa full note-ka la qoray xitaa si full ayaa loo arki karaa marka si aan u sameeyno aan tagay qaybta practice-ka practice-ka waxa ku yimid tusaale ahaan Excel sidan oo kale oo isku dhex qasan marka waxaa la rabaa inaad soo saarto marka waxa ku sameyn karnaa marka si aan column-kan aan full uga dhigno waxa sameynaynaa calaamadda meesha column-ka labada column iska imaadan ayaa kor saarina then double click ayaa leenahay double click marka dhadid waxa ku sameyn doonaa in uu column-kani cabirkiisa uu ku siiyo oo saxda ah uu ku sameeyo marka sidoo kale waxa sameyn karnaa in aan meesha istaagno then aan click dhahno ajiidno markay ajiidno inta aad rabtid ayaad geyn kartaa wuuna ku ogolaanaa marka hadhowna waa soo celin karaysaa inta aad rabtid si aad ugu soo editid marka qaybtan kaleente note-ka waxaan sameyn karnaa markii aan jiidno ama double click aan dhahno si sax ah ugu soo baxdo waxaa laga yaabaa in xog extra ah aad ku dartid kadibna ka qarsoonto halkaas oo kaleente marka wax ku sii kor dardaro waxaan ka baxo wuxuu sameyn doonaa range-gu way ka baxday kadibna ka si toos ah marka qaarkood u arki karmaa in jiido u baahanaysa marka si aad uga faa'iideysan marka uusan dhererkan noogu sii soconin oo mar kasta oo aad sii dheeraato waxay noqon doontaa in aad shaashada aad daaftid waxaad sameyn karnaa marka waxaad leedahay Excel-ka inta aad rabtid ama notes-ka meelaha ku qoraysa ay calaameynaysaa then waxaad dooran doontaa waxa loo yaqaan whip text marka dhahno wuxuu sameynaa xogta ayuu soo xareyn doonaa xogaan kale intuu dhow ku soo tagi doonaa xogtaas marka uu soo xareeyo iyadoo isla siis ku saaran tahay ayaa waxa leedahay format then waxa leedahay outrow rowgani la ekaysiye marka soo marka hadda muxuu sameeyay marka hadda ma u baahnin marka xogtan kale inta meeshan ku qoran rows kale ku sameeyay kaliya xogtani waa inuu soo xarooto marka hadda haddii aan dhahno kan ayaa xog ku kordareynaa ama extra wuxuu sameyn doonaa isaga ayaa sameyn doona laymiska cusub marka hadhowna si automatically ayuu adjust gareyn karaa waa adjust gareyn doonaa kan kale inta haddii wax ku kordartid automatically ka baxid bisa adjust gareynaya marka hadhow waxay noqonaysaa data visualization-kaaga in uu noqdo si fiican in uu soo muuqan karaayo ama uu noqon karaayo marka casharkeena maanta waxaa ku baraynaa cabirada Excel-ka marka isticmaalaysa ama xog aad ku qoraysid haddii xogta kaa qarsoonto inaad iska sixin karaysid oo aad sameyn karaysid inaad kala bixisid ama aad word u sameysid haddii qoraal tahana aad u sameysid haddii ay number tahay waxaa arki doontaa calaamadda hashta inuu kuu sameeyo micnaheeda ah in cabirka cell-kaas uu ku yaryahay marka waa kala jiidaysa ama double click ayaa leedahay uu kuu shaqeyn doonaa insha allah maadsanta casharkeena maanta intaas ayuu noogu egyahay